KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan KNN aryaanaha heer kalamaanow qaarkiin ma xusuustay hadda ka hor waxaa jiris jirta hees la yidhaaho ila tali walaal aan kula taliye toogadaada noo sheeg walaal war talada lankaas adaka sheegaas ani hatta umbaahan lamadun hamiin ma iska aragay bahalhii limidid leeye ama baraarug lileeye waa soo qarwey waa riyooday araasangasan warna miyaw siaran jeefa leeha ka war ay lagan nimiya ay lahaysad ay guruun ino ila maamul fadoohay war faragelinta oo dhaaftana wallaha reed may hay dhiiday widaadko idan tahliil jiray noonan saada oo wal tahliil ay intu faan arbiriyaa iska soo aysana hoosan tala kale ii dhaantan reer kalmaan ay tin isan siintaala war wiligay ma arkin riyo beesha caalamka ay soo fargelinayse dadka beenta ka daa horta riixay taa tiiridayda ay cunaysan arki jira miyaysan ahayn warnimada riyo laguma tashado lagamana tashade qofkii riyooday bay qusaysaa war waa dawladda qadar waxa riyada ku dhisay dekadaha iyo jidadka Soomaaliya ku yaalo dhan war adeer annaga dekedeedii berbera waxaan riyo ku siinay kuuriyada waqooyi oo John Wankin warnimada waxa suriyo maahane aniga waxaan xala ku riyooday dawladda Soomaaliya muddo kororsi odayaal dhaqameedka weydiisanaysa sidii in ayagu soo doorteen war subutaanka abliga Muqdisho ee booliska riyo maahane waa run wareedha war ma haysaana waa iska murantaane madaxweyne farmaajo maanta qaar culimada Soomaaliyeed kamil ayuu shir u furay war culimadii Soomaaliland ma ku jirteeniyow horta qowdin aan la yaabay mar wuxuu leeyahay dawladda jaarka aan nahnay marna wuxuu leeyahay culimadeena shirka ma ku jirtay marka qowdinow adeedana suraacayso heshii war kula jiray kaana jiray waliga miyaadan maqal war naga joogona dhageysta madaxweynuhu culimadu shirka u furay wuxuu ku yiri innaga iyo shabaabna heshiisiya war shabaab hadii la heshiinayo inta ay dadka baabeen maxaana loo heshiin war madaxweynaha khudbadiisi ma idnaan dhageysana wuxuu yiri waxaan hawsha ka wadi laanahay siyaasiyiin mucaarada iyo faragelin shisheeye war madaxweynuhu ma iloobay tubta siyaasadda loo dhan yahay nimayabow anigu taas waxaan ka dhihi lahaayo taageerayaal tahliil caaba taagan waa tabtayte taageerayaal tahliil caaba taagan waa tabtayte haye war saas ma ahane waxa la yiri tuur nin bay la leedahay nin kale hawl la toosani isu tanasul kama maarantiyo tooga waligeed tilaabada waxa loo dhigaa goorbasay tahay aruntaw lanki tuurkayaala tabteeson jeefada u si gorade hore waxa loo yiri aqal tiir laanti kaligi ma taagne hadeynaan istaakulin tabar yeelamayne kaashada cadaawo wartanina waa yaabe ma taasaa keenteen maantana war ma haysaana madaxweynaashii Geeland ee Nairobi joogay waxay la kulmeen beesha laxaad oo loo yaqaan beesha caalamka war Nairobi ma meesha lagu shiray waa Muqdisho waxaanu ku shiray hay'adaha garsoorka iyo maamulka gobolka Banaadir waxaana looga hadlay shirkaasi sidii loo fulin lahaa xukunnada maxkamaduhu ay ridaan war gudoomiyahayagii maxkamadiina sare meesha ma joogay war waan soo dhaweynaa hadii Soomaaliland uu soo biirtay warnimada waxa la yiri nabar halisa maanta oo kala laga jawaabaye sokor baa qaraaraatayaan laga dhaadhicine xoolana ninkii dhaqan jiray tani ka haysaaye laxdu qowday waa la arki jiray tanisa waa nayle hasha inay gunjaysay rabtaa caana beeshaduye ka ceshada hadaad leedihiin waan idin digaye intaasaan idin sheegayaa aamus laga roon maad haddana tiri warnimiyow bilaasha fartaha ingiteega saamaaheen ana isaaga hatiifto
noola jiri laakiin tiifkun tiif ee sanga ii nagdi my brother tiif meesha laga helo soldier waa inuu joogaa police stationkan la geeyaa war aana hel kurburoog miihi ana warnimayo hadaartii inaan luntiin axmed yuusuf saleemaan raaca war ninkii turkiga ku wareera inuu axmed yuusuf saleemaan eedda saaraya oo malaynayay war waa iska qaylinaysaan war ma haysaane meesha balaayada iyo bugtu ka dhacday maanta muqdishona maahan turkigana maahane waa sirilanka runtaw sirowma liibana waa leeri war saas maahan sirmaqaba saaba biyo alshaaleer war adeer waad wareertay waa sirmaqaba alla u sahana war haylo waalanine waa sirilanka 8 qaraxa lala beegsada kaniisado iyo hoteelo dad badani joogay 200 qofood waa dhimatay in ka badan 400na waa dhaawac baa la leeyahay war buda wariye Donald Trump hanin sheegi warkaasay mayna eray 138 milyan qofooda ka dhimatay meelin dad 21 milyan nyaanyo war hadduu Donald Trump dadkii maanta Sri Lanka ku dhintay 138 milyan ku sheegay dadkii qaraxiisa banooga dhintay misuu ku sheegay dawladda aan wadaagno badda Hindiya ee Sri Lanka marka hore waxaan uga tacsiyanayaa dadkii qaraxyada maanta uga geeriyooday waxaan soo baaqayaa inay dhagxaan isaga xilaan jidadka si ay cadawga uga badbaadaan war mudana taas unika dhiban dad kala ma banan dardaarantoy warniyo waxaana shubaysaan u garan maayee madaxweynahaygii Muuse Bixi Cabdi Xildiid imaaraadkii ma ka soo laabtay aryaadhaha madaxweynihii hore Suudaan Umar Xasan al-Bashiir gurigiisa Baaris lagu sameeyay waxaana laga helay $300,000 oo kaasha 6 milyan oo euro kaasha iyo 5 milyan oo lacagta Suudaan oo kaasha ciidankii lacagtaas helana ana qaadahay isku dagaaleena la yiri kaash badana wax u sarifay miyuu way warlankaas Umar Xasan al-Bashiir madaxweyne aqli badan ahay reer Suudaan walaakin aamaw haankayna meel degsi wari maaha war waxaad sheegaysiin wax ka weyn ayaa dhigaysa diyaaradii Malaysia 5 sano ka hor luntay waxa la dhahay jahay qaldana laga raadinay haddii koob jahay saxda la raadinay la yiri 5 sano ka hor walax dhumayo jahay qaldan laga raadinayo hadda jahay ku maqan yihiin inta laga raadiyaa ana daatay dabadood la qabay wardada anaga ma guuraane idinkuna waxba ma dhaantiin orto lagu kala kaxeeyo meeshan iyo la kala kaxeeyo war yaa leetag ma baahana walaal